dhawaaqa rasaasta qaybihiisa kala duwan ayaa iyagu ahaa mid laga maqlayo gudaha magaalada waxaana ku dhaawacmay inta la ogyahay ugu yaraan 7 ruux iyagoona dhaawacaasi lagu dabaybayo cisbitaalka Manhal ee magaalada Laascaanood maanta waxa la ciyaal badan baa leeyahay waa khasab maanta waa khasab sidee toolka khasab ku qosl weeye ku qoslimayna anagu khasab wala la dilay ciyaalkiina maanta la leeyahay waxa lagu leeyahay garan mayno khasab weeye waxoodu khasab aanu ma yeelano khasab aanu wax ku yeelmayno maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aanu u dhibano dalkayaga ciidayada iyo dadkayaga waxaan maanta leenahay walaalayaal waad aragtaan falka leen kuwa xabada sayna ku socoto marka walaalayaal waxaan leeyahay dhiigina markii ha dhaqaaqo ciidamada militariga ayaa gudaha u soo galay magaalada si ay u kala diraan dibadbaxayaashaasi banaanbaxyada keesokow dhawaaqa rasaasta qaybihiisa kala duwan ayaa iyagu ahaa mid laga maqlayo gudaha magaalada waxaana ku dhaawacmay inta la ogyahay ugu yaraan 7 ruux iyagoona dhaawacaasi lagu dabaybayo cisbitaalka Manhal ee magaalada Laascaanood waxaana ka warbixiyay Dr. Cabdinajiib oo kamid ahaa wadannada cisbitaalkaasi سمعت عن ما كنا مكان من وداوعة وجودنا هل كيس وحبض والزراعة كذا كيدل ووين ودناها معناه سان كيرتين وهنتي أقول جرام لكن ولا تعلمنا كيس سكر لكن يجوا وين لبس معين وما تنتبه أنا لو حنوتاي ما تجيري قبلا هو يوم الشهر ويدي أنت أصلا ما يدي يودا واحد طريقة يلا واحد على أنا ما شرو قبيلة أوصل شقتك تمشيت مقالنا قبيلة أوصل شقتك واحد ولا أنا ما شفتها ما تتعامل كانوا وحنوا لنا صدق تكذب بعد صار لسحالات كتاج وين وحبوا قبطان طب وده شنو وين يكملوا ذا لسحالات دي بعد كتاج وين يكملوا ذا والسلام عليكم ورحمة الله maxaa ka dhacay Laascaanood maanta waxaa ka dhacay dil waxaa ka dhacay dhaawac waxaa ka dhacay anagoo hooyooyinoo suuqna laga jiiday waxaa ka dhacay dhirbaxooyin kulul waxaa ka dhacay caruuraha iyaga jeelka ku wada jira iskoolada ka soo rawaxay waxa weeye waxaan leeyahay dalka kan ma aha dal Soomaaliland ka taliso dadkeeda iyo shacabkeeda iyo dadkeeda dhalinyarada raggeeda iyo dumarkeeduba waa Soomaali weyn khaatumaanu nahay nalama khasbi karo waxa maaha qof mushaar qaata inuu naxasbo qof la waxaysta qof isaga la soo adeegsay maaha inuu naxasbo Soomaali baanu nahay ma yeelayno ma ogolin idinkama ogolin waxaan u sheegayaa beesha caalamka iyo adduunka waxaan u sheegaynaa inaanu ka xunahay beenta adduunka loo sheegayo Soomaaliland weeyaan gobolka Sool carruuraha iyaga la leenayo ka dul qaadan mayno waanu ka dagaalamaynaa beesha Soomaaliland wax la dhaho inaysan meesha ka jirin beesha khaatimo la dhahay ka jirto maanta ay noo tahay 18 may qashin gurkayaga iyo nadaafadayadii oo waliba caruurihii lagu laayay dhalinyaradina lagu laayay iyagoo qashinkiyo nadaafadii iska gurayo